madaxweynayaashii hore ra'iisul wasaarihii guddoomiyaashii wasiirada xildhibaanada walaalaha ka soo qayb galay kulankan ducada ah ee loogu sameeyay walaasheen aamina assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun waa runtii geeri xanuun badan aniga ka shakhsi ahaan aamina waxaana dhex maray arrintii igraan tahliil oo aada la socoteen siday ku bilaabatay iyo ilaa hadda meesha ay marayso saan ka ballan qaaday maalintii ugu horreysay ay yimaadeen aamina iyo igraan hooyadeed iyo ugaaskaba waxaan ballan qaaday una sheegay inaan arrintaas god u galayo haddii ay igaarsiiso ballan ayaana waagaas qaaday welina waa ku taaganahay laakiin waa laygaaga baxay dad badan ayaa igaaga baxay dagaalkaas markaan bilaabay dad badan ayaa kusoo gabagabeeyey war ragga kale celiya anigii madaxweyne farmaajo ma ahayn taargetkeenna madaxweyne farmaajo ee wuxuu ahaa dadkii falkaas geystay igraan tahliil oo ay aamina cadaaladda u raadinaysay in maxkamad la saaro laakiin waa la siyaasadeeyey mana ka harayno hadduu allah subxaanahu watacaala idmo waxaan kaloo aaminsanahay sidaan u aaminsanahay in aan cawadaba dhiman karo in aamina gacanta ka gardaran ee dishay ee ahayd gacantii igraan ka dambeysay sababtaan saas u leeyahay wax kale maahan walaalkay cali guudlaawe subaxii dhaweed uu isoo wacay oo ay iskhilaafeen guddoomiyaha siid ee hirshabelle kaasoo doonayay in kuraasta ay u xirnaato oo dad gooni ah la siiyo markuu walaalkay madaxweyne guudlaawe aqbalay in kuraastaas la furo uuna ila soo xiriiray garabna aan ku siiyey in ninkaas la bedelo waxaa isla markii anigii madaxweyne guudlaawe ka wada hadalnay furitaanka kiiskaas ee aamina ay ka mid tahay in dhibaato ay soo gaari doonto ilaaha iga sarreeyo wax saacad ka yar kadib message ayaa ii soo dhacay waa hayaa oo leeyahay kursigaas aamina furitaanka afurteen boob iyo ujeedda u leedahay laakiin waa waxaa ka hesho cali guudlaawe iyo reer hirshabelle waa iska celinaynaa adigana waa iska kaa celinaa waa hayaa messageka waa u dhimanaa waana u dhiman doonaa hadduu allah subxaanahu watacaala idmo aamina walaashay ahayd dadkii ka dambeeyey ilaahay waxaan ka baryayaa waa isku dayay xoog iyo awood intaan leeyahay inaan wax kaga qabto laakiin waa ka guulaysanayna hadduu allah subxaanahu watacaala idmo waa nool yihiin kuwii qarashka ku bixiyey ninkii aamino isku qarxiyey ee ka soo waday dhulkaad aragteen ee keenay hiiraan beledweyne waa nool yihiin kuwii abaabulay waa nool yihiin kuwii lacagta ku bixiyey laakiin insha allah allah subxaanahu watacaala wuu ka soo saarayaa xaqa darrada ay galeen hadduu allah subxaana wa tacaala idmo mana ka harayno intaan noolahay waxaan idiin sheegayaa xilligii doorashada lagu jiraa waxaad moodaa inaan diyaar loo ahayn doorashada dadka qaarkood ay taagan tahay cadkeygii oo ku cun ama ku ciiday laakiin waxaan ballan qaadnay jadwalka ay fiid soo saartay oo uu dhigayo 14 abriil ama waqtigaas ama ka hor inaan soo gabagabayno dhaarinta baarlamaanka hadduu allah subxaanahu watacaala idmo markaas ayaan guulaysan doonaa inta dembiga gashayna markaasaan la xisaabtami doonaa hadduu allah subxaanahu watacaala idmo waxaan idiin sheegayaa xaqaas oo ah inaan ka miro dhalino ka rooble ra'iisul wasaare ahaan الله سبحانه وتعالى هرتيسا إن كغيريا وإيجا قان تهاي
waana u dhimanayaa cid kastoo isku daydo inay handado cawadaba raalli laga meen inaad soo baxo marka mar horaan dhintay laakiin waa noolahay insha allah waana guulaysanayna. Wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.